الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين واستفتحوا ويفرد البين واستفتحوا ضمير كاسيو نغنى أم رسوشي با إلهي فرد البتوتر إلهي ونكالسار أم واستفتحوا كوي كفار تعابا إلهي فرد كتلبا وحيرا إلهي ونكالسار هذا أنا وتوصلنا هنا لبت النسي هذيك القوة إلهي ونقب بابي إيجي أم إهل لبدا بوعلي واستفتحوا رسوشي يوم مؤمنين تهرعسني iyo kufaartaba way furid dalban ilaahay ba ku furid dalban ilaahay ki mid walba wuxuu yiri ilaahu ki wanaagsan liibaani ki kale ilaahu baabi bay yiraahdeen kaaladana saasay yiraahdeen kuwaana saasay yiraahdeen kolka dameerka ama rususha iyo muuminiinta u celi ama ma ee kufaarta u celi ama labadaba u wada celi markii ay furid dalbeen kulligood ba iskaga celi markii ay furid dalbeen waqaaba waxa hoogay kullu jabbaarin mid wax qasbin badan oo caniidin oo madax ka kano oo xaq dhinaca marayo kulligiis iyaa hoogay min waraa'ihi jabbaarka macna waa hoogay macna waa la halaagi way min waraa'ihi gadaashiisana waxa ahaaday ka jabbaarka ah macna waxa ka horeeyo oo gadaashiisa waxa loo jeeda waxa ka horeeyo sidii sugay min waraa'ihi gadaashiisa waxa ahaaday jahannama ahaati jahannama la geenaya bayusqa waa la waraabinaya markuu jahannama la geeyo min maa'in biyaal waraabinaya شديد أو عرن أو ديعان شديدك وحا لي رادا ملحد iyo dhiig isku dhex jiro waa dheecaanka madaxda aan saafiga ahayn dhiig saafin ahayn isku dhex jiro oo waxa weey dadka ehlo naarka ah markay naarta ku gubtaan jirkooda dheecaanka ka socdo way carunka ka socdo kaasa la waraabinaya yatajarra'u wuu liqliqaya jabbaarki hu biyaha soo liqliqaya يعني ولقلق واسكو قصبنا ياوي بي العبد كرمه قرنكود قرتودا حداد فيرسي لدن حمدودا واديابيسا يتجرعه ولقلق ياوي يعني هل مرمو يعني قومات بكر يتجرعه ولقلق يا كل إن يرو اسك دجنا ولا يكاد مسغه يصيغ كي او وض مايو هو اسغا بياس كي وض مايو مسغاي وض مايا يعني كم دغانوي يتجرعه ولقلق ياوي آير بولقيا ولا يكاد مسغه يصيغ كي وضمه هو بيهاسي هو اسغ وضمه اي وضمانه غري قماتي اي غدغان مسكتو way ku adag tahay biyaha soo cabaya ilaahay naga nabadgeliyo wayatihi waxa uu iimaanaya ninkaasi al-mawt mawtka uu iimaanaya min kulli makan dhinac makan kasta uu iimaanaya wax isaga dhinto wax isaga dilo iyo afarta jiha uga iimaanay ama afarta dhinac ama ma afarta jiha oo jirkiisa ah ama ma afarta jiha oo afarta dhinac ah iyo uga iimaanaya oo waxa weeyaan mashaakilka isaga ku dhacay dhibaatooyinka ku dhacayo xagga afarta jiha uga iimaanaya mid kastaba waa wax dilay isaga wama huwa asal markaas ma aha isagii bimayitin ku dhimanayna ma ah yani waxyaalihi markuu adduunku joogo hadii la feeriyo oo ku dhimanay iyo afarta jihaba uu iimaanay mid kastaba haduu ku dhaco waa dilila isla markaa ma dhimanayso ajaa'ibta fiili bani aadamkan markay dhibaatada ku dhacdo oo dhimanay adduunkan waxa weey ilaahay ba ugu talagalay aakhira dhibaato kasta dhacayso mana dhimanayo ruuxda markuu ilaahay bixiyo ba bixayso hadii kale ma baxdo kolka waxa weey dhibaatadaas baa sugaysa وما هو بميت كل من ينمأه ومن ورائه إسلام كاسي عذاب كاسي كراشي سوحة أهاتي ومن ورائه كراشي سنوحة أهاتي عذاب كسو غليظ قروي مركي لباتداس أي كل عذاب أو جهنم اللي أو بيها أصاو عباياي حد نوحة أقدم بي عذاب كالوك قروين مرة كدم بيس عذاب كدم بياجر أو كي يورو قدر وأن نيفس مجرو markas taba oo cadaabka saa u haysto waxa ka dambeeyay cadaabka loo ka qarweeyno kii hore ka dar wiligiisaas ku dhamaysanaya waa wax dhibaato badan weey oo in adduunka inta la joogo la iska jiro ay fiican tahay waa ilaahay ma qarinin waxa dadka uu sugay qorshihiisa uu sheegay ilaahay qorshihiisa uu sheegay ama ku talagal ama ku talagalay u tabaabusheeyay ama u tabaabusheeyay
ninka qaloocan waa sidaas wey waxaasaa sugaya mathalu aladiina kuwii xaalkoodu kafaruu kufriyey birabbihim rabbigooda ku kufriyey xaalkoodu acmaaluhum acmaashoodu ka ramaadin dambas yay lamid tahay dambaskaasoo ishtadad ay la oroday bihi isagaba alriixu dabaasha ay la oroday oo waxaa laga keenay shadda bimacnaa cadaa yaa laga keenay ama ishtadad ay adkaatay bihi dabaasha bihi dambaskaba alriixu dabaasha ay ku adkaatay fii yowmin maalin dhexdii ay ku adkaatay yoomkaasoo caasifin dabayl adag leh yay lamid tahay bimacnaa waxaa weeye kuwaas marka sidaa loo cadaabay waxaa suuroway adduunkan inay wanaag sameeyeen birulwaalideyn waalidiintay baariyaal u ahaayeen dad bay wax anfaceen cadaalay xukumeen run bay sheegi jireen waxbay samayn jireenoo khayraad ah wax dadka anfacay samayn jireen waxaasiyo idil maxagay tageen wey wixii ay sameeyeenoo wanaag ah ilaahay wuxuu yidhi waxa ay sameeyeenoo wanaag ah marka aakhare la tago acmaashoodaasi marka aakhare la tago waxaa weeye waxay lama tahay dambas dabayl adag ay ku dhufatay oo kala bidbiday wax ma ka soo qabsan karta adug dambaskaasi haddaad sidaa tidhi waxbaan soo qabanaya wax ma ka soo qaban karta waa saas oo kale wey waxba kama helayaan wey laa yaqdiruuna ma awoodaan calaa shayin shay korkii ma awoodaan laa yaqdiruuna ma awoodaan mimaa kii xaggii kasabuu ay kasbeen oo acmaashaas ah calaa shayin shay korkii kama awoodaanoo waxba kama helayaan waa nin yidhaah dabaashaas dambaska ay kala bidbidisay oo sidaas dabaasha kala raacay waa nin yidhaah waan soo qabqabanaya miyuu awoodi karaa shayna miyuu ka soo xasilinaya sidaas oo kale wey ajri ma laha wey daalika kaasina ma arkaysa daalika kaas oo lasoo sheegay oo waa maxay in acmaashooda ay ka ramaadin oo kale ay tahay wadalaalulbaciidu baadeenimada fog baa taa alam tara miyaan arkay nebi maxamedow ana allaha ilaahay khalaqa inuu abuuray alsamaawaati samadaha abuuray waalarda ardada abuuray bilxaqi xaq inuu ku abuuray ardadan iyo samadan waxaa isdur saarmo bilaash ba bilaash ma aha xikmad baa ku jirta imtixaan baa loo samaystay bani aadamka ha ku manaafacadsado ha fiirfiiriyo ilaahayga sameeyey tilmaamihiisa ha ku garto saasaa loo sameeyey maahee sidaa unana iska ahaanayso ma aha in yashaa haddii oo doono ilaahay yudhibkum idinkuba idin tabinaya wayati wuu la imaanaya bikhalqin jadiidin khalqi cusub wuu la imaanaya hadduu doono ilaahay dadkan xumaanta samaynaya oo la arkaya ilaahay wuxuu awoodaa inuu dem ka siiyo oo khalqi cusub oo la yimaado bani aadam kale ah ama khalqi kale aan weliba la arkin ilaahay waa la imaan karaa wamaa daalika kaas lasoo sheegay oo waa maxay min idhaabikum iyo walatyaani bikhalqin jadiidin ah kaasi ma ahaanin bicasiizin shay ku adag ma ahaanin cala allah ilahay korkiisa ku adag ma ahaanin ilaahay wuu samayn karaa way u sahlan tahay wabarazuu way muuqdeen aakharaaba la tegi wabarazuu khalqigii way muuqdeen qubuurtay ka soo baxeen lilaahi ilaahay bay u muuqdeen jamiican dhammaan xaal yihiin meel bannaan ah yaa khalqigii lasugu keenaya adduunkan waxbay qarsan jireenoo mid guri gala oo wax sameeyo mid meel kala galo xus sameeyo mid hoos wax ku qarsaday ahay laakiin aakhara bannaankaasaa laskugu imaanaya iyagoo wada muuqda kolka horeba ilaahay way u muuqdeen laakiin iyagaa ismooday inayna muuqanin maalintaas laakiin nin is odhanaya ilaahay uma muuqatid ma jiro wabarazuu way muuqdeen lilaahi ilaahay bay u muuqdeen jamiican dhammaan xaale ay yihiin faqaala waxay yidhaaheen alducafaa kuwii taagti darna liladiina kuwii waxay ku yidhaaheen istakbaruu isweynay kuwa taagti daran waxaa weeye waa kuwa la wato ma ah wuu taag daran yahay awood ma laha jismigiisa lama laha jismigiisa waxaa suurow siduu maroodig inuu u buuran yahay laakiin wadnihiisaa suuf ah eber waa la wadan karaa waxaa weeye yacni daciifnimada waxaa loo jeedaa waa qof la wadan karo wey waxaad rabaa adugu ilaahay caqliga ku siiyey kaa kalena waa siiyey caqliga wuxuu ninkaas wanaagsan yahay ku raac wuxuu ka xun yahayna ka leexo kolka nimanka ducafada waxaa weeye waa kuwa caqligooda aanan yacni ma intay meel iska dhigaan dadka waxay sameeyaan iska raaca kuwaas wey oo la leexsan karo oo la wadan karo kuwaasi waxay yidhaahdeen liladiina istakbaruu kuwii iswaaweyninayay ee wax luminayay waxay ku yidhaahdeen innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn markii adduunka aan joognay tabacan kuwa raacsan lakum idinku idin raacsan marka adduunka joogno idinkaan idin raacsanay waxaad tidhahdaa maan yeeli jirno waxaad caabudaysaa maan caabudi jirno
wixii aad tiraan kana wanaagsan maan samayn jirnay idinkaan idin raacsanayn oo idin daba soconay maadaama ay sidaa tahay fahal antum idinku ma tihiin mustakbiriintii haddaad tihiin muqnuuna kuwa deeqay canna anaga xaggayga min cadaabillahi ilaahi cadaabkiisa xaggii wax ka deeqay min shay-in shay un ka deeqay markii adduunka aan joogno idinkaan idin raacsanayna waad ogsoyintii idinkaana lunshay hadda cadaabkaana haysta wax ma naga qaadaysaan bay yidhahdeen oo qayb naga qaata hanoo fududaaday onog ilaa idinkaan noo sabab ahaa saasay odhanayaan fahal antum idinku ma tihiin muqnuuna kuwa deeqa canna anaga xaggayga min cadaabillaahi ilaahi cadaabkiisa wax ka deeqa ma tihiin min shay-in shay ka deeqa qaaluu waxay yidhahdeen kuwii mustakbiriinta ahaa low hadaana allaahu ilaahay haddowna hanuuniyo markaan adduunka joogno la hadaynaakum aan idin hanuunin lahayn waxay yidhahdeen haddaan marka adduunka joogno aan hanuunsannahay idinkuna waan idin hanuunin lahayn laakiin marka adduunka joogno aan baadiyaysnayn kolkaa maadaama aan baadiyaysnayn wixii inagu aan haysanin baan idinku yeeray haddaan hanuunsannahay anagaa idinku saa idimaanu galne anagaa lunsanayn wixii aan ku lunsanayn anagu aan samaynayni umaan idinku yeernay tii baad nagu raacdan wey kolka anagu wiligayba naseexaan idin ahayno waxaanu ku qanacsanayn baan idin tusin jirnay kolka adduunkanu markaan joognay hanuun maanu haysanay waan lunsanay idinkuna inaadna soo raacdayna kolka wixii aan samaynayni baad nala samaysan bay leeyihin kolka anaga saas weeyaan cudurdaarkayga waxaa weeye anagaa kolka horeba lunsanayn anagoo lunsan haddaanu soo raacdeen xaggee hanuun idinka keenaynaa bay leeyihin sawaaun isku mid weeye calaynaa korkayaga annaga mustakbiriinta ah idinka mustadcafiinta aba korkayaga waa isku mid ajazicnaa ergagaxnaya oo qaylinaya oo ergagaxnaya amase sabarnaa waxaan hayso ku samirnaaba waa isku mid haddaan qaylinayna habeenii maalin iyo haddaan samirnaba waa isku mid maa lanaa anaga nooma sugnaanin min maxiisin makaano leexad oo ilaahay cadaabkiisa aan kaga leexano meel ah nooma sugnaanin kulligeen isku mid baanu nahay bay yidhahdeen markii halkaa maraysa oo nimankiisa ay yidhaahdeen shaydaanka markaa khudbo akrinaya waqaala shaydaanu shaydaankii wuxuu yidhi lamaa qudiya alamru markii amarka la xukumay oo layidhi dadkii baa la kala qaaday waa la kala hagaagay fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciiri xukunkii wuu dhammaaday adduunkii waa dhammaaday aakhira la joogaa dadkii waa la xisaabiyey wixii jannada tegayana waa xaggaasay u baxeen wixii naarta galayana xaggaanay u baxeen markii amarka la xukumay sidaa arrintii ay dhammaatay mid wax laga soo qabto aan jirin markaasuu shaydaanka khudbo isu taagaya markaasuu khudbo akrinaya wuxuu uu khudbo akrinaya kuwii naarta galay iyo uu khudbo akrinaya wuxuu leeyahay ina allaha ilaahi wacadakum waa idin yaboohay wacda alxaqi yaboo xaq buu idin yaboohay min idaafati lmawsuufi ilaa sifa wacda alxaqi wacdigii xaq ahaa buu idin yaboohay markuu yidhi bacsi baa jira xisaab baa jira abaalgud baa jira markuu lahaa xaq buu idin sheegay wa wacadtukum aniguna waan idin yaboohayo wacdal baatili baan idin yaboohay oo waxaan idin bacsi ma jiro xisaabe ma jirto abaalgud ma jirto aan idinku idhi aniguna ilaahayna waa idin yaboohay waa yabooris xaq baahay aniguna baatil baan idin yaboohay kolka aniga fa akhlaftukum waan idinku ballan furoo yidhi wixii aan idin lahaa bacsi ma jiro xisaab ma jirto abaalgud ma jiro aan idin lahaa waan ka baxay waan idinku ballan furoo yidhi wamaa kaana ma ahaanin lii anugu iima ahaanin calaykum korkeena iiguma ahaanin min sulطaanin awood suldaan aan idinku qasbiyo oon idinku soo leexsho anigu ma lahayn markaan adduunka aan joogni awood aan idinku qasbiyo idinku soo leexsho maan lahayn ilaa an dacawtukum inaan idin yeeri maaye oo fastajabtum aad ajiibtum lii anigu aad ijiibtum waan idin yeero halkaan soo maro maan idin war ninkaan wuxuu wada waa sidee ma fiican yihiin kama fiirsane waa ay soo daba ruclayseen bis wuxuu yidhi taas weyaan buri kolka idinka weyaan buri aada aniguma awood xaggeed igu aragtay awood aan idinku leexshay meeda falaa talwumuuni anigu hay eedaynin walwumuu eeday uu yidhi anfusakum naftiina eeday idinka isakay soo raacay maad ka fiirsataan waxaan idinku yeeray waxay yihiin yacni intaas buu dadku luminayo aakhirana saasuu u hoojinaya maa ana aniga ma ihi buuri bimusriqikum kii idin gargaari idin soo birmanayo ma ihi buuri oo idin soo gurmanayo oo wax idin qabanayo maa ana anigu ma ihi bimusriqikum kii idin soo birmanayo oo yani idin soo gurmanayaan leh oo wax idin tarayo oo waxa idin haysto idinka badbaadinayo ma ihi wamaa antum idinkuna ma tihidiin bimusrikhiya
kuwa iisoo birmado iisoo gurmado oo waxay ahaaye wax iga taray idinkuna ma tiidin bis halkaasi ku dhammaatay innii anigu kafartu waan kufriyey bimaa ashraktumuunii shariig yeelidayda aad ilaahay iila shariig yeesheen oo sida ilaahay loo caabudo oo kale aad ii caabudaan shariig yeelidaas min qablu hori aad ilaahay iigu shariig yeesheen maanta waan ku kufriyo yiri markii hore sida ilaahay uu loo caabudo aad ii caabudi jirteen alam axad ilakum yaa banii aadama anlaa tacbudu shaytaana ilaa haddaa isaga raacday waad caabuday innii anigu kafartu waan kufriyey bimaa ashraktumuunii shariig yeelidii aad ilaahay iigu shariig yeesheen cibaadada min qabl hore markii adduunku la joogo aad iigu shariig yeesheen waan ku kufriyey shariig yeelidaas maanta waan ku kufriyey ina aalimiina aalimiinta lahum iyagu waxaa u sugnaaday cadaabun aliimu cadaab uu xanuuniyo yaa u sugnaaday mushrikiintii hadalkaas isagaa wata ama ilaahay baa xaggiis ka yidhi markii oo khudbadaas oo akhriyay yuu ilaahay yidhi ina aalimiina lahum cadaabun aliim waudkhila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati waudkhila waa la geliyey aladiina kuwii aamanuu rumeeyey wacamiluu camal fali alصaalixaati acmaal wanaagsan camal fali jannaatin jannooyin baa la geliyey jannooyinkoo tajrii ay socoto min taxtihaa iyada hoosteeda lanhaaru hubiyaalka ay socdaan khaalidiina xaalayihin kuwii waaray fiihaa jannooyinka dhexdooda ku waaray biidni rabbihim rabbigooda idinkii iyay ugu waarayaan rabbigooda idinkii baa lagu geliyey rabbigooda idinkii bay ugu waarayaan markii lasoo sheegay dadkii qalloocnaa dhibaatada aakhiro sugayso yaa hadda waxaa naloo sheegayaa dadkii wanaagsanaa waxa ay leeyihiin taxiyatuhum taxiyadooda yacni iyagoo nabdaadintooda lagu nabdaadinayo oo macnaa la salaamaya fiihaa jannooyinka dhexdooda salaamun salaam wey nabadgelya lagu nabdaadinaya lagu salaamaya amba assalaamu calaykum markay nicmooyinkaas ay haystaan waxa lagu salaamayo waxaa weeye nabadgelyo waxaad arkaysaan oo nicmo ood haysataan haddana wax nabadgelyo la yidhaahdo oo wax alle wixii idinku adkaanaysaan ka nabadgashaan yaa la idinku yacni yaa la idin sheegayaa wey alam tara miyaanad arkay nebi maxamedow ama qof yawna lala hadlayo kayfa sidee daraba allaahu ilaahay oo u caddeeyey maalan mahmaah bimacnaa qiso cajible oo mahmaah oo kale isagoo caddeeyey kelimatan masalanta ka bedelo icraabooyin badan bay leedahay taa aan kusoo gaabto kelimatan kelimadaasoo tayibatan oo wanaagsan waa kelimo wanaagsan kelimadaa wanaagsan waxyaalo badan baa lagu fasiraa waxaa loo badanya in ay tahay shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu ullah taas wey kelimada wanaagsan oo shahaadada ah inuu ilaahay caddeeyey kelimadaasoo tayibatan oo wanaagsan kelimadaasoo ka shajaratin am hiya kelimadaa dayibada ah ka shajaratin geed bay lima tahay geeddaasoo dayibatin wanaagsan xagga raa'ixada urta ka soo baxaysa waa udgoon tahay dhadhankeeda waa macaan yahay waxyaalo fara midabkeeda iyo araggeeda waa fiican yahay kelimo saas oo kale u wanaagsan shajaro saas oo kale u wanaagsan iyadoo sidaa u wanaagsan haddana asluhaa asalkeeda oo gunta ana haabitun ku sugan uu yahayo dhulka aada ugu suganoo dhulka aada u galay oo asalkeedaasi aada u xididaystay wa farcuhaa faraceeda oo xagga kore ana fi samaa'i samada ku sugan yahay oo dheer yahay shajaradaasoo tu'tii siinayso ukulahaa midhaheega siinaysa kulla xiinin midhaheega la cuno ay siinayso kulla xiinin waqti kasta ay siinayso kulla xiinin waqti kasta ay siinayso biidni rabbihaa rabbigeeda idinkii ay ku siinayso xiinka waxaa lagu idlaaq karaa 6 bilood baa loo badan yahay 6 bilood sanad 2 sano ilaa 40 sano kolka xiinka ma aha daqiiqad kastaba inaan leenahay ama saacad kastaba waxa weeye 6 bilood ba ugu yar sida loo badan yahay kolka waqti kastaba oo xiin la yiraahdaba midhaheega way siisaa way biidni rabbihaa rabbigeeda idinkii ay ku siiso geedaasi waxa lagu tilmaamaa in ay tahay timirtu laakiin iyada ha ahaato ama mid kale ha ahaato ujeedadu waxa weeye kelimatu laa ilaaha ila allah daasi waa kelimo wanaagsan weeye asalkeedana waa sugan yahayo
quluubu lmu'miniin buu ku sugan yahay oo ku xididaystay asalkeeda. farac bay leedahay laamo fara badan oo acmaasha saalixada ah oo iyada ka burqanayso wey. ila camal kastoo saalix ah iyaduu ka baxaa. kolkaasay midhaheegana ay siinayso waa may acmaashaas hadda i jeer sawaab baa laga gurtaa. kolku waxaa weeye kelimadaas waxay lama tahay yacni geeddaas oo kale, geed caynkaas oo kale ah, shajara tayiba asluhaa haabitun wa farcuhaa fi samaa'i tu'tii ukulahaa kulla xiinin biidni rabbihaa. geedaas ama ku fasir timirti, ama geed kale lagu fasiro ku fasir, ama geedaas oo kale unbaa loo jeeda. ulijeedadana geedaas sida ay tahay oo kale kelimada dayibada ay tahay. wayadribu llaahu ilaahay wuu caddeeya alamhaala qisooyinka cajibta leh, tilmaamaha cajibta leh oo mahmaha oo kale ilaahay wuu caddeeya linnaasi dadka wuu caddeeya lacallahum dadkii waxay mudan yihiin yatadakaruuna inay waantoomaan ee wax xasuustaan, ee khayrka qalbigood intuu xusuusto ay waantoomaan oo wanaagga ay qaataan. wa mathalu kalimatin kelimo xaalkeedu sifadeeda cajibta le, yacni kelimadaasoo khabiisatin xun, way xun tahay, araggeedana waa xun yahay, dhadhankeedaa xun, waxaa xun maanta ma arkaysa yacni midabkeedaa xun, dhibaatooyin bay leedahay. kelimo saas oo kale ah waa kelimatulkufri wey, kelimatulkufri wey, way xun tahay. mathalu kalimatin kelimo xaalkeeda kelimadaasoo khabiisatin xun waa kelimatulkufri ka shajaratin geed bay lama tahay, geeddaasoo khabiisatin xun, araggeedaa xun, dhadhankeedaa xun, midabkeedaa xun, dhibaatooyin bay leedahay, waa lagu dhiboora, dadku waa ku dhiboora. geeddaas bay lama tahay, geeddaasoo khabiisada ahoo ujtusad la rujiyey min fowqi lardi, arada korkeeda laga rujiyey. yacni xidhido badan ma laha, kolkaasaa usoo qabatay way soo ruqaysaa, dhulka aada uguma duugno oo xidhido ku salaystay oo dhulka aada u galay ma laha. kelimadaasoo ujtusad la rujiyey min fowqi lardi, arada korkeeda laga rujiyey. kelimadaasoo maalilaha aanaan u sugnaanin iyadu min qaraarin, sugnaansho ee dhulka ay ku sugnaato aanan u sugnaaninoo xidhido waaweyn oo dhulka galay oo ku salaystay aan lahayn. kelimada khabiisada geedaas oo kale lama tahay. kolka kelimatulkufri waa wax sabaynayo wey, waa baatil wey, intuu doono ha isbuurbuuro, intuu doono soo doono ha ahaado, xaqa unbaa baaqi noqonaya. kolka geedaas khabiisada ah dhibaata dadka ugu timaado, dadka uma macaana, adduunkan dabeecadda uma macaana, wax kastaba uma macaana. maxaa yeelay ilaahay qorshihii oo watay iyo wuxuu jiray bay ka hor imaanaysaa. kolka waxaa weye kelimatulkufriga waa sidaas wey. meel kufri jiro xumaan kasta kufrigay ka imaanaysaa. kufri baa u sal ah. haddii kufri meesha oo joogo wanaagii la rabayo ilaahay oo rabo ifkaan ugu talagalay ma hirgalayo. yuthabitu ilaahay wuu sugaa, yuthabitu allaahu ilaahay wuu sugaa aladiina kuwii aamanuu rumeeyey bilqowli qowlkiibuu ku sugaa, qowlkii athaabiti sugnaa ee qalbigoodu ku sugnaa oo makansaday. waa laa ilaaha ila allahu wey. qowlkaasi waa qowl sugan oo qalbigoodu ku sugan yahay oo makansaday, halkaasoo ku sugan yahay aan laga fujin karaynin. qowlkaas haabitka ahee qalbigoodu ku sugnaaday iyou ilaahay mu'miniinta ku suga fil xayaati dunyaa, noloshan adduunyada dhexdeeda. oo macnaha adduunyadani markii dhibaatooyin badan ay dhacaan, mashaakil badan ay dhacaan, oo dhibaatooyinkaas faraha badan ay dadka qaarkii ay gilgilayaan, iyagu qowlkaa laa ilaaha ila allah wada ah waa sugan yahayo qowlkaasi yani kama gilgilinayaan. dad badan baa waxaa jira haddii mashaakil oo qabsado ama dhibaato ay ku dhacdo, weliba gaar ahaan diinta darteeda loo dhibaayo, dad baa ka gilgisha arrintaani. laakiin saas ma aha. dadka mu'miniinta ee toosan qowlkaasi qalbigoodu ku sugnaaday, wuu makansaday. kolka qowlkaas iyou ilaahay ku sugaa markay mashaakilka adduunka dhaca, fitnooyinka ay dhacaan, qowlkaasoo ku sugaayo qowlkaasi kama gilgishaan, qowlkaasi lagama waayo, qowlkaasay ku sugnaadaan. wax doona hadday dhacaan qowlkaas waa ku sugan yahay, lama suuroodo inuu qowlkaa qalbigooda ka foqo. ilaahay baa ku sugaya subxaanahu wa tacaala. waa dadka iimaankooda aada u fiican yahay wey, dadka iimaankooda aada u sugnaaday wey. kolka qowlka haabitka waa laa ilaaha ila allahu. haabit waxaa loo yidhi qalbigu mu'miniinta uu ku sugan yahay,
halkaas ulaa'ika kataba fii quluubihim aliimaana ilaahay bayra qalbiga mu'miniinta uu ku dhex qoran yahay halkaasuu ku sugan yahay kolka markay mashaakilka yimaadaan qowlkaasay haystaan qowlkaasay qabsadaan ilaahay bay cuskadaan ilaahay bay tala saartaan kolkaa ilaahay subxaanahu watacaala wuu ka samato bixiyaa yuthabitu allaahu ilaahay wuu sugaa aladiina kuwii aamanuu rumeeyey bilqowli haabiti qowlkii sugnaa ee qalbigooda ku sugnaa iyuu ku sugaa fi lxayaati dunyaa noloshan adduunyada dhexdeeda iyo wa fil aakhirati aakhirana qowlkaasoo ku suga aakhirada laga bilaabo qabrigana markii labada malag u yimaadaan ay su-aalaad u jeediyaan qowlkaas iyuu ilaahay ku sugaayo qowlkaas oo iyay sidii adduunka ay ku ahaayeen iyay u sheegayaan wakadalika mawaaqifu yowma alqiyaama marka lastaagan yahay mowqifka marka la istaagan yahay oo dadka ay welwelka iyo welbahaarka ka batay iyay qowlkaasay haystaan oo qowlkaas qalbigooda ku sugnaa iyuu ilaahay ku sugaa baynamaa kuwii kale aan jawaab helaynin waxay ku hadlaan aan helaynin oo xujada ay ka wareerayso oo ay noqonayaan facaamiyat calayhim alambaa'u amba'dii ay ku xujaytami lahaayeen ay ku garheri lahaayeen ba kolkaa ay waayayaan kuwa mu'miniinta saas oo kale ma ah wayudilu llaahu ilaahay wuu lumiyaa aldaalimiina daalimiinta waa lumiyaayo oo qowlkaa haabitka ah markay adduunka balaayo iyo mashaakil dhacaan daalimiintaasi ilaahay subxaanahu watacaala wuu lumiyaayo ilaahay qalbigoodu ma sugo oo tawxiidka kuma sugo aakharana saas oo kale iyuu u lumiyaayo ilaahay tawxiidka kuma hagaajiyo wayafcalu llaahu ilaahay waa falaa maa yashaau waxuu doono falaa oo min tahbiiti lmu'miniina bilqowli haabiti iyo waidlaali daalimiina daalimiinta baadiyaantooda wuxuu raba isagaa fala alam tara miyaanad arkayn nabi maxamedow ila aladiina kuwii intii ka miyaanad arkayn badaluu bedelay nicmat allaahi ilaahay nicmadiisii kufri u bedeshay ilaahay waa u nicmeeyey nimankii nabi maxamed ilaahay ka soo dhex diray khusuusan quraysh nicmay ahayd laba nicmay heleen horta nebi maxamed baa ilaahay u soo diray tan kale qur-aanka loo soo dejiyey waa laba nicmo labadii nicmo kufri bay u bedeleenoo nebigiina way ku kufriyeen qur-aankiina way diideen kolkaa nicmo ilaahay sii wey nicmo la siiyey bani aadamku waxaa ugu weyn in ilaahay rasuul kuu soo diro oo kuu caqli celinayo ilaahay hadalkiisa maanta markiisa kusoo gaarsiinayo iyo isagiyo rasuulkaasoo adugu maarata bani aadam oo adugu aad afgaran kartid waa nicmo weyn iyo idoo kitaab lagu soo dejiyo waxaase nicmadaas bay ku kufriyaan oo wa axalluu dejiyey qowmahum qowmkoodun daaral bawaari halaaga daartiisa dejiyey qowmkooda waa may kuwii raaci wey markay nicmada kufri u bedeleen kuwii raaci baa qowmkooda ah jahannamo dejiyey yaslowna xaal ay kala galayaan oo ay kulaalayaan haa jahannamadaas ay galayaan wabi'sa waxaa baas yeeshay alqaraaru makaanu sugnaansho makaan lagu sugnaado yaa baas yeeshay waa jahannamo wajacaluu waxay yeeleen lilaahi ilaahay waxay u yeeleen kuwaasi andaadan kuwo isaga kufil ah oo ilaahyaal kale oo isaga garab joogo oo ilaahay wuxuu qaban kara waa qaban kara ay leeyihiin yay u sameeyeen maxay ugu samaynayaan liyudiluu inay lumiyaan darteed dadka inay dadka lumiyaan can sabiili ilaahay jidkiisii lagula xiriirayay ay dadka ka lumiyaan sidaa daraaddeed iyay andaad ilaahay ugu yeeleen qul dheh nebi maxamedow tamatacuu raaxaysta intaad kartaan adduunka ku raaxaysta fa ina masiirakum ahaanshihiina ama makaanu ahaanshihiina fa ina masiirakum ahaanshihiina ila naari naarta intii ka u ahaaday naarta idiin dambaysee intaad rabtaan taas raaxaysta adduunkan sidaa dheh maadaama ay ilaahay ay shariik u yeeleen oo dadkana ilaahay jidkiisa ka luminayaan adduunka intaad rabtaan raaxaysta ahaanshihiinana ilaa naarta intii ka u ahaaday wallahu subxaanahu watacaala aclam